Biyatan koristis bal egay Gulcday qurux bal egay Barwaqada ilaahi bal egay Wirahatan qurux bal maxamed waa iska garan kartaa dalkan waa dalkii uduga gobolka Sanaag gaar ahaan waxaan ku yiri degmada Laasqoray baa halkan laga xukumaa waxaan ku iska garan kartaa geeldooreen ka soo baxnay eeshan waxa la yiraahdaa calmadow baa la yiraahdaa waa dalkii quruxda waa dalkii dahabka waa dalkii uduga waa dalkii waxaan ku yiraahdaa beeraha waxaan ku waad ka garan kartaa waa dalkii waxaan ku hidiye dhaqanka iyo geeli waad iska arki kartaa waxaan ku yiri maxamedow hadda koor waxaan ku hees baan ka tiriyay halkan heesta waxa la yiraahdaa Sanaag dhulkan bilicdalo marayaan biyuhu dhulkan bilicdalo marayaan biyuhu beeraha qurxoon rabbi beerayo bilicdii Sanaag ma ku soo bara aad baa u mahadsantahay abaar dhul bustaana oo biyo malab yihiin baariiska wacan beeri raaxada ma ku soo bara barashadeeda taan ku bisilay aad baa u mahadsantahay saaxiib waxaan dal dheer uga soo tagay oo mudug iyo gaalkacyo uga imid inaan bilicda iyo barwaaqada Sanaag aan barto aan ku dalxiiso aan ku raaxaysto dadka aan garanayn oo aan arkayn oo aan aqoonna inaan waxa weeyaan u sheego oo tusiyo kuwii ilaahay nimcada siiyay ee ka taariibay ee ka tagay ee qurbaha ku silixsanna waxaan leeyahay war America tana ka fiican war Canada tana ka fiican war Europe tana ka fiican war Paris iyo London tana ka fiican war Scandinavia tana ka fiican war waxa ilaahay ina siiyay baldaya bal biyaha shumaya daya bal beeraha daya bal barwaaqada daya bal geeli daya bal loodii daya bal nimcadii daya dhulkaana ilaahay ina siiyay ilaahay wuxuu ina ka dhigay dadka ugu qanisan dadka dhulkii ugu quruxda badnaa ugu barwaaqada badnaa bal fiiri roobka iyo dusha iyo barwaaqada waxa naga haysta bal fiiri doog iyo cagaarka bal fiiri biyaha iska durduraya bal fiiri nimcada ilaahay ina siiyay nimcada ilaahay ina siiyay inaynu ku shukrino inaynu ku noolaano waxa kale ay ina ka mudan tahay nimcadaana waa ay dayacan tahay dayaca inaynu ka saarno jidka aanu marayna siliciisa iyo rafaadkiisa waa arkaysaa waa inaynu jidka inagu dhisannaa waa inaynu xoolaheena ku dhisannaa waa inaynu halkudhigi ahaa wanbix aynu wadada dhisnee nin hal bixiya nin sac bixiya nin waxar bixiya nin orgi bixiya nin mooska u soo baxaya bixiya nin liinta u soo baxaya bixiya nin cambaha u soo baxay ugu soo go'aya bixiya nin walba waxa weeyaan waxa uu bixinayo waa inuu bixiyaa waa inaynu wadankan aynu ka dhignaa laami waa inaynu ka dhignaa goob dalxiis oo adduunku inuu ku yimaado oo loo soo tamashla tago oo barwaaqadiisa laynala wadaago innagu inaynu tahriibno waxa ka mudan innaga laynoo soo tahriibo oo laynoo yimaado بسم الله الرحمن الرحيم كل كان ينمعدا سا إلهي نسيه وحين كم مقن لما أركو يوروب وحما أوغي أمريكا وحما أوغي كندا وحما أوغي عرب وحما أوغي آسيا وحما أوغي وحوضا وحكفي عن بإلهي سيه برواقدا صار لا يهي برواقدا سوحان رواه هدي أنا نقولك يقو لقسكو أبا الجدن صومالي كمدلا هدي أنا نقولك يقو ليق عداوك وكشبن صومالي كمدلا قلت أنا وحو رباينا عدوك كدعنا عدوك كسوهم قريينا سيدي أي أوياشين يا أبياشين أحمد قري سيد محمد عبد الله حسن يا دكتي لمكها يا أنتي أسويل يا أنتي صادين يا بقريناها سيدي أي أقعليان عدوك إن عدوك أقعل إنه هو حوي إنه وابل بدنا وإنه نمعلي سلا صباحنا وإنه خيرات في سكفة إيدي سنو وإنه بيره سفلنا وإنه نبدي عدوك كعشنا عدوك أصفر دردشي إنه خيرات كأني بضا بابا إنه دول كأني بارتو إنه وحوي خيرات في سكلا وإنه كهر تقنا والله إلهي برواقدا أي نمعدا أي نسيي إنه كشكرنا إنه نمعدا الناس كفاية يديسنا إنه بيها ونلشة بيها هالك كذا عي قروح ذا إنه كد الحسنة إنه كنا صنّه إنه كنا علانه إنه كنا حيسنه دلالك أدونك وحر رجالها وجبنا كسر جلاد الحيسك تذكر حيلاقيين مالي كد الحيسان تذكر الصومالية وحلانا إنه كسر الحيسان ويمادان dadka ajnabiga ana waa iman karaan waa lagu soo dhaweynaya dadkan waa dad nabadgelyo dhulkaanuna wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo dadkiisii wax u bartay ee aqoonta lahaa wuxuu u dirayaa fariin wuxuu leeyahay war maxaad ii nacdeen war maxaad igu doorsateen war maxaad iiga tagteen
war maxaad iigu soo noqon weydeen war maxaad ii camiri weydeen war maxaad ii dhisi weydeen war maxaad nimcooyinkayga uga faa'iidaysan weydeen war ma waanan dad lahayn ayuu leeyahay war dulkeenna aynu ku soo noqonno war aynu ku noolaanno war aynu nimcadiisa ka faa'iidaysanno war qani baynu nahay innagaa adduunku inoo baahan yahay adduunka uma baahnin gaajo iyo innaga ilaahay waa ina kala dheereeyey halkaasuu ina ku abuuray dhulkaas iyo nimcadaasuu ilaahay idin siiyey war nimcada aynu ka faa'iidaysanno aynu ku barwaaqowno aynu ku noolaanno iyadana aynu wax ka qabanno dadka sidii loo horumarin lahaa adeegyada asaasiga loo soo gaarsiin lahaa caafimaadkii waxbarashadii isgaarsiintii wax walba beeraha halkan ku yaalla waxaa naloo sheegay liintu inay geedka jebisa midhuhu inay jebiyaan cambuhu inuu jebiyo markii wax ka guran la waayo sababtoo waddo loo soo maraya lama arko in waddooyinka la dhiso waddadana waxaynu ku dhisi karnaa waa xoolaheenna iyo xooggeenna iyo aqoonteennu aynu isu geynay dalkeenna innagaa iskale haddaynaan innagu dhisan cid inoo dhisaysa lama arko bilaahi calaykum bal barwaaqadaas iyo nimcadaas iyo fiiriya quruxdaas aynu ka faa'iidaysanno aynu ku noolaanno aynu nimcadaas waxa weeyaan ka faa'iidaysanno maasha allah dhulkan yaa iskale haddii la isweydiiyo waa su'aal da'weyn dadkii lahaa meeye maxay uga faa'iidaysan waayeen dhulkan waa ooyayaa wuxuu leeyahay war maxaa dad la'aantay dhigay war dhulkeenna aynu ku soo noqonno kii ka maqanow dhalanteed iyo dhul shisheeye iska daa dhul shisheeye dheef ma leh habeendhixitin mooye guri ninkii lahaa quruxsaday cayr inaad ka qaadatid laguguma talagelin ilaahay waxaasoo nimcaha buu ku siiyey